xarunta degmada Shangaani ayaa lagu qabtay munaasabad ay ka soo qayb galeen boqolaal shacab iyo mas'uuliyiin sarsare oo dawladda Soomaaliya ka tirsan kaas oo lagu taageerayay guusha uu madaxweyne Farmaajo ka gaaray nabadeynta iyo iskaashiga Geeska Afrika. Fanaaniinta kooxda Banaadir ayaa goobta ay munaasabada ka socotay ku soo bandhigay suugaan ka hadlaysa qiimaha ay dawladnimada leedahay. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab waxay tilmaamtay in dawladnimada oo adkaata ay ku xiran tahay midnimada shacabka. waxaan ay ummad Soomaaliyeed oo muslina Afrikaana haddana jecel Soomaalinimada iyo Afrikaanimada ayaa inagu weyn. marka gudoomiye ka haween ahaan waan dareemaynaa hooyada Soomaaliyeedna waxay jeceshahay ubadkeeda u dhan. marka anigu waxaan nahay aasaasiyaashii midowga Afrika, waxaanu ahayn wadamadii ugu horeeyay ilbaxnimada iyo xorriyadda qaatay, waxaanu ahayn geesiyaashii Afrika, waxaanu ahayn kuwii yaan ismiid ma muuqdeen rudiis iyo ma maageen haddaan midig la siiyeen Mozambique, Angola, South Africa ma moogin barigii lagu heesay maanta ma aha. wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabduuli ayaa ugu mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka caasimadda ku nool sida ay had iyo jeer uga go'an tahay garab istaagga dawladnimada. waxaan rabaa kaliya inaan halkan ka sheego inta aaminsan oo maalin walba dhahaysa amnigi baa faraha ka baxay iyo amni lagama shaqeeyo. waxaan caawa taaganahay degmada Shangaani ayadoo xilli dambe ah annagoo xildhibaana wasiiro madaxdii gobolka iyo dhammaan saraakiishii ciidanka waxaan la joognaa shacabkii degmada Shangaani. waad arkaysaan isdhaxgalka iyo bambaxa ka shaqaynta iyo tusaaleynta hoggaanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Ejnayriiso waxa uu ka hadlay horumarka socda iyo sida ay madaxda qaranka uga go'an tahay. runtii waxaa sharaf weyn noo annaga maamul gobolka Banaadir haddaan nahay inaan mar walba u taagannahay inaan u adeegno bulshada Soomaaliyeed, inaan isdhaxgalka iyo nabadeynta iyo horumarka caasimadda aan ka qayb qaadano. waxaan ballan qaadnay waxay ahayd in caasimaddan ay la tartanto caasimadaha adduunka. waxaan ballan qaadnay inaan u istaagno sidii cadaalad iyo sinaan iyo horumar bulshadan ay ku gaari lahayd. waxaan u istaagnay waxay ahayd inaan bulshadeenni ku dhex jirno, u adeegno. caawa oo habeen saqdhaxaana inaan bulshadii iyo shacabkii Shangaani aan dhex joognana sharaf iyo karaamay noo tahay iyo cizi. waxaan kaloo si gaara rabaa inaan uga mahadceliyo shacabka iyo maamulka degmada Shangaani sida sharafta leh ee caawa aan halkan ugu qabsannay shirkii heerka qaran ee isxilqaan ee xubnaha golaha wasiirada iyo maamulka gobolka Banaadirba uga tashanayeen sidii loo dhaqangelin lahaa, loo dardargelin lahaa barnaamijkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa isxilqaan in dalkan lagu dhisto. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.